هجاج برنامج كعيارها أدونك ورق اللي حيتمنات وحقوق حساب بدنت عيارتي كده عند جرونك الثمامة إسبانيش كأي عند حما إيو ودنا حنون كلك كلن تيدلك موروكو كدي مركي بقول الله باتنك الدقيقة عيارت اللي اسمر وياي كلا بحن بعلف كيسة قرن بعلن كيسة يورجورا يا اللي سلجاري بل سوى حبر نفط كشر دلك إسبان ياسين بنو وأقول هيه اللي بحيدا أطلس دلك موروكو يو نادي سيفيلا كاسيو عيارية هندا إسبان ودي ذي أقول أنشها إن شبق موروكو كبد جل جارسيبا بابلو سرابيا ولا قبطي كارلوس سولا وحا لوير يادي مودي ساجيو بوسكوت كابتنك برشلونة iyo كابتنك qaranka Spain ciyaaryahanka ugu da'da weyna garoonka Althumama si sharaf leh ayaa looga qabtay oo waa lagu baashalay halkaasi ayay dabaaldegga Morocco ka bilaabatay Ashraf Hakimi ayaa u dhameeyay dalkii 1859 ku dhawaaqay in ay ku duulaan Morocco balse maanta ayaka ayaa looga soo duulay dhanka kubadda libaxyada Atlas ciyaaryahanada Afrika dalka Morocco ayaa ka kormaray Spain 1500 kilomitir dhererka buurta Atlas waxayna noqdeen dalkii afraad ee Afrika ee u gudbo wareegga kota finaalka koobka adduunka waana markii ugu horeysay oo reer Morocco ay u gudbaan wareegga sideedaad ee koobka adduunka anigu magacaygu waxaan ahay Xasan Ayman